dhalinyarada Israel xilliga la aasaaso markii 1943 15 May oo markay lagu jiray dagaalka laba adduunka way macnaha xilliga lagu jiray dagaalka adduunka wuxuu bilaabay 1939 wuxuu dhamaaday 45 dhamaaday adu wuxuu socday September 1 ilaa September 2 ayuu dhamaaday lix sano iyo hal maalin ayuu socday laakiin aan xag ugu gudbay marraba dhalinyarada Israel nolosha aan maanta ku noolnahay waxay ka qayb lixad leh waxay ka qayb qaateen in Soomaaliya madax banaani caalamka ka aqoonsado ama safarna tigeeda yani caalamka dhan aqoonsada madax banaani Soomaaliya hesha waxa way ka qayb qaateen dhalinyarada Israel ay jiraan dhalinyaro kale laakiin u abaabulan qaab nidaam qabali ama qabiile Israel marka ka soo degno 1960 oo kale ilaa iyo 70kii wuxuu ahaa doorkii ugu weynaa Israel ay ciyaareen oo gobonimadii iyo xilligoodii wili uu markaas taagnaa 70kii wixii ka dambeeyay ilaa maanta kaalinta dhalinyarada iyana waa intee halganka dalka kaalinta dhalinyarada ee halganka dalka hadaan wax walba la qabanaya ama wax walba in la fuliyo waxa marba loo adeegsadaa ama fuliya waa dhalinyaro halgankii waxa ka qayb qaatay waa dhalinyaro burburkiina waxa ka qayb qaatay waa dhalinyaro marka dhalinyaro sidoo waxa weeyaan waa sakiin laba af leh marna waxa loo adeegsadaa dhanka negative-ka marna positive-ka loo adeegsadaa markaad eegtid doorkii Israel ilaa iyo xilligii dambe waxa muuqatay in doorkii halganka Israel kadib uusan joogto noqon doorka dhalinyarada maxaa sababay kula tahay سؤال مهم ومر بعد ذاك الويدي لكن قفل بسؤالك معنا جوابك اللي دون لك البحث مركان فكر كي يعبره قلت ذلك سومالي وحا سومالي سدح دليرة حتى انكسب بالسؤال وهي تاريخ ضم والله هاي سؤال وقوري سؤال عن تاريخان وحكو حي دليرة دي نحق وحلق دول دي كحانك وهوري ابياشين وحاول كو سدح انغو السؤال هذا انكسب بالله وحي قاتن قول لو دبالدق إلا هذا لو دبالدق وهذا أسبوع عودة كوجرنا ودول دقيقة وأقول أنا مد صم ودول دقيقة اللي يرد ح نسحما وحي دلك من أن سوق جالسيان قرط مركب حالة قلد الضربة إن جيلك أيجا كدم بيه إن جالسيان هديت قيمة بدن ويوم مركب إذا هدية الجالسي سؤال سوق جالسي وحلويره هديت عن قيمة بدن واحد جالسيان جيلك إذا كدم بيه أو سومالي سيدان كون أكسن ويقدمين بلس سيد الرؤمين فل وحين قدوسيا سوماليا أنا ممكن إن القدوسية وصرتي أد معناها أذن ضميرك أذن قادرين نصيب حما وحين كوسو كرني نورال أذك وحين ضدك دليل هذا شو كوسو كرن قح الرفاد أخون لان يضلك يوم معناها كذا عدي حالد أدحن وحي أدل قاتل دليل هذا الجو تفهمت وكأ أمانيا وحي أدل قاتل إنه يكون نورالان ضلك يوسيدا إنه واحد كبرتان ayna dadkooda caawiyaan ilaa hadda wili way taagan yihiin laakiin waxaan dhihi kala dadkii dhexe ama dhalinyaradii dhexe ayaa waxay gabeen kaalintoodii oo aabaha dhamaanteen ugu horeeyaan way waa jiilkii dhexe jiilka anaguna waxaan u taagan ilaa hadda isma dhiibin wili never give up isma dhiibin wili waxa wadnaa halgankii ahaa in anaguna taariikh aan samaysano way dunidu waan ka tagi doonaa deebeedna laakiin taariikh aynu ka taganaa